ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble waxa uu hanbaliyay xubnaha maanta la doortay ee labada sanatar ah isaga oo sheegay in guul weyn ay uga dhigan tahay xukuumaddiisa in la soo dhammaystiro xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka. waxa uu kale oo sheegay in la sii wadi doono doorashada xubnaha golaha shacabka oo toddobaadkan ka bilaaban doonta dalka. haddaba waxay guddigu sheegeen in 38 maalmood lagu dooran doono 273 kursi iyadoo 108 maalmood 50 kursi lagu doortay. macquul ma tahay maxayse caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor imaan karo? Professor Cali Dhuux ayaa weydiiyay su'aal arrintaas ku aadan. Xuseen waa mahadsan tahay. waxay ila muuqataa arrintaasi arrin macnaha niyad jab abuurtay weeye oo waqtigii maaragtay waxaa moodaa in la dilay oo 54 mudane lagu beerdareeyay muddo 4 bilood ah macnaha ku dhadhow. marka arrintaas waxay ila muuqataa arrin gaabis oo aan dadka hadda maaragtay bulshada markaad dhegeysato ama aad qiimeyn ku samayso oo aad looga niyad jabay arrintaas. laakiin alxamdulillah si jirtaaba siday dhaantaa hadda aday soo dhammaystirantay oo hadda hay'adihii dastuuriga mid ka mid ah hadda ay soo baxeen oo aqalkii sare hadda la doortay waa waxaa moodaa jiitan badan iyo niyad jab badan ka bacdi in hadda organisationadii dastuuriga ahaa mid ka mid ah aqalkii sare hadda inuu soo dhammaystirmay ayada lafteeda rajo ah. marka waxa la yiri sidaad ka badan weysay sidaad rabtay haddaad weyso sidaad ka badan weydaa la yeelaa. marka waa ayada lafteeda dhinacaas xoogaa waxaa moodaa inay tallaabo hore loo qaaday. waa mahadsantahay. marka xageeba is leedahay dhibaatadu waad ka jirtay ama way ka jirtay inay muddo inta la kuraastan 54 kursi ah ay ku baxdo ma dhinaca maamul goboleedyada ma dhinaca dawladda dhexe ma beesha caalamka iyo kabkii dhaqaalaha xageeba is leedahay way qaadanayaan mas'uuliyadda dib u dhaca? waxaan is leeyahay waa interlinked weeyaan oo wax isku xiran oo ama beesha caalamka ahaato ama ha ahaato maamul goboleedyada ha ahaato ama prime ministerka ha ahaato waa wax isku xiran oo markaasi wax weyn interdependency ah. aniga waxaan arkaa inay mas'uuliyaddaas wada lahaayeen gaabiska sababta aad ogtahay doorashada waxaa loo dhiibay prime ministerka marka maxaa la yiraahdaa mas'uuliyadda ugu badan isaga saarnayd iyo maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada meesha wax ka socon waayeen isaga la rabay inuu sheego oo yiraahdo oo maaragtay oo dadka la socodsiiyo maamul goboleedyada haddii ku dhagan yihiin iyo haddii beesha caalamka ku dhagan tahay waxaa la rabay prime ministerku inuu ka hadlo arrintaas. laakiin waa wax isku wada xiran. dhinaca beesha caalamkana waxaad moodaa iyadoo doorashadii socoto oo ra'iisul wasaaruhu xoogaa maaragtay firfircooni iyo tillaabooyin badan uu qaaday in lagu qasbay oo barashar inta la saaray la yiri madaxweynaha muddada ka dhamaatay la heshiiyay sidii loo heshiiyayna waxaad moodaa inay hawsha ay gaabis ka noqotay. marka beeshan caalamka ama international community waxaad moodaa iyaga laftoodu inay sandaacad ka ahayn markaasi wax weyn qabashada doorashada ama electoral processka sida ay wax u socdaan inay iyaga laftoodu inay ciribta uga taagan yihiin baad moodaa. maamul goboleedyada laftooduna waa sidoo kale. marka waa mas'uuliyad wadareed baan sidii karaa dayacaas waa la wada leeyahay. marka hadiiba 54 kursi 4 bil oo maalmo dhiman ay ku baxday waxay guddiga doorashadu shaaciyeen in 38 maalmoodna lagu dooran doono 273 xubnood. ma iswaafaqayaan baa is leedahay haddaan ka tusaale qaadno aqalka sare sidii waxa ayeen? aniga ma yaan qabaa haddii ay waxaanan ogeyn ay ogyihiin waa gooni. laakiin haddii shaqadu sidii loo waday oo markii hore gaabiska ahayd ay u soconayso caqliga bini'aadamka ama dadka wax garanaya ma yeelayaan 38 maalmood baa lagu dooranayaa ergadii lagu xareynayaa xildhibaanadii lagu dooranayaa. marka waxa weeyaan caqligu ma ogolaanayo hadday iyagu wax kale og yihiin oo hadda ay guddigu ay leeyihiin macnaha waxyaabo wixii markii hore gaabiska keenay baa meesha ka baxay waa gooni. laakiin uma malaynayo hawsha iyagu hadda say u wadeen hadday u wadayaan inay sidaas ay noqonayso. waxaan is leeyahay ma dhici karto waa waqti intaa ka badan bay qaadan doontaa. dadkuna haddii doorashadu ay sanadkan dabeeqadiisa dhaafto wax dhadhanaa doorashada Soomaaliya aysan yeelan baan u malaynayaa ama madaxda hadda joogta lafteedu adduunyada ma jirto dawlad caretaker oo xilgaarsiin oo maaragtay maxaa la yiraahdaa inta
inta iska joogtaa meel ka jirta lama arko dadkuna waxa weeyaan oo kan niyad jabeen kumana qanci doonaan inay iska sii fadhiisto ama iska sii joogaan xafiisyada maxay kula tahay marka ka aqoon ahaan in loo xalliyo ama lagu maareeyo iyadoo laga faa'iideysanayo waqtiga waad ogtahay oo doorashadu buuq bay yeelan kartaa jiid iyo kuraas lagu murmo iyadoo ay waqtigiina aad u dheeraaday maxaa isleedahay way habboon tahay in la sameeyo si waqtiga looga faa'iideysto waxaa habboon in la sameeyo guideline horta doorashada la raaco oo jadwaladan hadda ay sameynayaan oo ay maalinba ta guddigu soo saaraan haddana bedelayaan oo expire ka noqonaya in laga gudbo in la soo saaro guideline saxa oo electoral process oo doorashadu ay ku bilaabanayso kuna dhamaanayso maalintaasay bilaabanaysaa maalintaasayna dhamaanaysaa oo la hubo oo shaqadaasi maaragtay waxa weeyaan little by little loo sameeyo oo maalinba inta la qabanayo la yaqaano oo usbuucba inta la qabanayo la yaqaano oo bilba inta qabsoomaysa la yaqaano oo qorshaysan laakiin in hadba jadwal intay soo saaraan oo expire noqdo oo dadka lagu madadaaliyo oo haddana mid kale la soo saaro waxaasi waa wax jira ma marka waxaan aaminsanahay guideline-kii doorashada inay sameeyaan oo ay yidhaahdaan maalintaasay doorasho bilaabanaysaa maalintaasayna dhammaanaysaa kana dhabeeyaan marka iyagu awooday doonaan iyo ciday doonaan ba hala kaashadeen haddii aanay saa samayn karinna inay meesha isaga wareegaan baa fiicnaan lahayd oo dad kale oo hawshaas qabta ay u madax baneeyaan marka sidaasaan anigu aan soo jeedin lahaa ama ila tahay marka ugu dambeyn haddii 2022 ee doorashadu dhaafto oo leesla galo 2022 in doorashadu xiisab beesha mooye ma waxa ku muuqanaya wax kale oo ka dhalan kara wallahi waxa weeyaan xisbiyow dawladnimo sida marka laga hadlayo dawladii waxa weeyaan marka dawladnimo laga hadlayo dawladnimadu waa koox dadka kamid oo haysta sharciyad ay wax ku maamusho marka 2022 hay'adaha hadda jooga oo caretakerska iyo xafiiska madaxweynaha ayadoon doorasho dhicin hadii la gaaro wax lagu aamini karo iyo cid ay hadda mas'uul u yihiin iyo cid ku qanci karta inay jirto ma umaleynaayo macnaha waxay keenaysaa waxaas xoogaa in la karaahiyesto in dadku ay nacaan in maxaa la yiraahdaa in xitaa waxyaabo kale ay dhacaan dhici karta oo meesha de sharciyadii mar haday dhamaato waxba lama kala duwana wax la isdheeriyahay ma jirto marka dadexishoodkii iyo maxaa la yiraahdaa xurumadii iyo wixii hay'adihii la xurmeynay haday waxba qaban waayeen oo ay meesha iska soo taagan yihiin oo dadkii aysan ka wareegaynin doorasho aysan jirinin wax dadka niyadooda ay ku kasbadanaysan sharciyada aysan haysanin hadee ma umaleynaayo ma ogtahay cid ku qanacaysa inay jirto marka taasi niyad jab weyn bay keenaysaa waxyaabo kalena waa ka dhalan karaan oo outrage ama fowdaha dalka inay ka dhacaan waa dhici kartaa xilligaas hadii la gaaro